koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waryaanaha kalamaan nanameeya kaleete qalabaqanayana isusoo kala qaada qalbiba qalabada qarshaweeye qalbigu armownaga waxaan ku soo xusuusnaa allah u naxariistay abwaan cabdulaahi xirsi baarleex shalayou hindiya ku dhintaan la yidhi waxaana igu dambaysa maalintou garoonka muqdisho ka baxaya dawladdu ay u dirta caafimaad dibadda hadda dalya dibadba meel kastoo lagu geeyo hadday taadu dhammaato waa dhimehe waa cadda hataas war allah u naxariistay abwaanka anugu waxaan ku xasuustaa harariyo hawaas allahayow la helo harariyo hawaas allahayow la helo anna abwaan barleex waxaan ku soo xasuustaa kulmiyaanahaye korallow ka yeel war anina maybaha kaa suusadee allahayow galbeed gaalka laga xantiyo war anna waxaan ku soo xasuustaa qaran baa nahaye allahayow quwe walle abwaan dhinta war baa u yaal haddii saan loo xamanayo war xan ma ahane waa dhaxal waxbuu nooga tegi hadda ka hor markuu dhinta allah u naxariistay cabdullaahi dhoogaan ayaan wacay nin layidhi abwaan shongo saaxiibkee ah cabdullaahi dhoogaan waa dhintaan wuxuu yidhi ninna mawdka kama dhuuman karo kamana dheeraan qofku dhaxalka wuu reebayaa la isku dhaamaa dhaqankeenna soomaalidu iyo dhihiddii suugaanta dhoogaan haddii uu ka tegey dheelli baa galay buu yidhi aryaa waa sidaad u sheegtay hadda haddii baarleex dhintayna nabee dhaanta dheelliyaa galay wargacantada jigjiga laga cayaaro qaryaandhoodaan baa la yidhaah garbaha iyo surkaana laga dheelaa sidii dhabaddii ee dhaantadii soomaalida maaha war dhaantada gaalgacyo fartaa laga dheelaa farta war haddii lagu faduuliyo fartaa laga jawaabaa miyaa maya waa fartaankaa la hadlaa kufurima faruuryahayge kufurima faruuryahayge wareedhaa war abwaanadii waxaa u batay reer hoosland dhammaantood hoos baa laga waca abwaan gaariya hadhihin abwaan bacadla hadhihin cabdilla raaga hadhihin abwaan yamiyo hadhihin dhammaantood hadda waa la waca kuwaan jawara ka hari maayaan iyo tanya jimcaala dhigataag abwaanadan berreeteen abwaan sahal macalin iisanteen kutabtan ilaahayg naxariisa tugurow maraagto aan ku xusuusnaa war meel nin tegey laga tabay waxaa la yidhi waa nin jooga ceebtiis marka abwaanada inta nool hawl baa u taalla waa inay gufeeyaan kaalintii ay ka baxeen kuwii dhintay wareedha abwaanada aad sheegaysaan ma qaraxiisoo bay ku dhinteen anigu waxaan dhihi lahaa nabad baa dawlada deeq lagu helaa hooyadii dilow dilan xaggee deer kuugu yaal anna waxaan dhihi lahay ninkii uu soo daanaaniye lagu daaraan daantuurerga ninkii uu soo daanaaniye lagu daaraan daantuurerga haye warwar maaytana geega koonfur galbeed wasiiradii walka qarafsiye laka magacaawi tuman horta miisyo abay walaago wal yare wadhiman dadkana may leeyina wala magacaawi kurito yaryar horta maday isaaqo waxaad la walagaysaa waran awaha ku muday warwarkay dhagaysay waraabo makrabkii jiido madawiina lafta gareegno hab wasiiradii magacaabi muqdisho ka fay waraaban ka bay war lafta garaado xamar yimid wasiirada ay aqoonsi soo doonay war ma yareebo uu rabo inuu wasiirka ugu jaal ka soo bixinaya waraada wasiirada uu magacaabay lafta gareen nin madaxweynaha ahaan jira ku jira ninkii la baxay madaxweynaha Bakolan Ahmed Mashruuc ayaa wasiir laga dhigay sida cadaaladda lafta gareen oo madaxweynaha wasiir uga dhigay madaxweynaha xafna waa inuu wasiir ka dhigay Ahmed Baasto waraada waa leeyri waan arkaa wacdaraha Sacuudiga weel banaysiga siyaasigii xil waayaa ka helay eed ku weerara isagaan wajihin buu yiraa waajibkuu siday ha yeeshee waxyeeladu ma aha say u wariyaan haddii lagu wareejo isaga hawsha lagu waabo wuxuu kii ku eedaynayo wax dhan lumiyaa dadweynaha isagaa wabxee waxuma biiraan
wareedahaya dawladda waxa weerara waa cabdiraxmaan cabdishakuur siminaarkii xamar loogu diido garow ku qabsade wuxuuna yidhi wakhti yaraa haray dawladduna wax dhaaxa ma qaban war ma weerarina wakhtiguu tirsanay xalana wuxuu yidhi markhaati ka ahaada dawladda intaasoo bilood iyo intaasoo maalmood iyo intaasoo saacadood iyo intaasoo daqiiqaha wakhtigeedii ka harta ogaashay xay kurba ku haysaa war lix beri kadib haddaa wado dukumentariga nabadii nool ay soo bandhigays war cabdiweligaas garowe maantuu macsalaameeyey waana la sagootiyey war shariif xasanba mar hore baydha waa ku sagootinuna ayaa kaska cadaad war kuu duugduugaysiin cali cabdulaahi cosob laba mar hore jawhar laga raacdeeye war waxaa la yidhaahda sayid sheekh axmed madoobe kismaayo dadkii daymaha ku lahay irinta u soo dhoobtay madaxweyne intaan lagu sagootin nasiib waxaana waraadhaa war ma haysiine waxaa loo joogiyo balaayaa ku meeraysataane qatar wiil soomaaliya koobkii u qaaday aabiisna wuxuu ka tirsanaa xulka qaranka soomaaliya waxaa lagu leeraysi jiray faraska cad wiilkiisana faras gudo weeye weeyadaasaan ku keenay eergaalkacya waxay dhihi jireen ma geel buu iga qaaday gool buu iga dhalshiye muxuu la boodboodahayaa war wiilka qatar uu ka dhashaa la yidhi abihiina tanzaniye marka soomaalidu waa isku qorqoray miya war cerkanaha ku dhashay soomaali waa soomaali aryaadhaha ku wareerina xumaanteed iyo samaanteed soomaaliya soomaali baale waraadhaha madaxweynaha somalilan musabixii oo ciidankiisa u qodbeynaya wuxuu yidhi farmaajada khayr intay joogeen waxay nagu hayaan buu yidhi cunuqabateen dhaqaale cunuqabateen siyaasadeed hawada xataa waa naga soo xireen udha etoobiya xataa kama soo qadan karin udha waxaan u sheegayaa musabixii iyo intii dhegaysanaysa inaysan marnaba ka harin mustaqbalka farmaajaysan iyo horumarka qayraysa war intaas qawdhan baa dawladda mar hore u sheegay muuse muxuu wax kale u sheegi waay war meesha qawdu ka yeertay waa baar dheere ciidamaana la qarxiyaa la yidhi soomaaliya etoobiyana isugu jira khasaarahana war lagama hayaa la yidhi ariyaa baar dheere maahina meesha isbitaalka laga furay waa gawaan dheere xildhibaanaana ka qayb gala furitaankiisa cabdi qaydid iyo ubax tahliil ay ka mid yihiin wareedha taliskii amisom etoobiyaa la wareegtaa in dhaweyd la lahaaye arrinkaa ma jira waryimaanaysa laga qaado etoobiya waa deriskaaga soo dhaweyn al-shabaab markii la arkay in etoobiya la soo dhaweynayo waa u malaynay war iyagaa kasbay taas war al-shabaab toddoba gaari ee afgoy meel u muuqata ay ku gubeen masaakiin dhuxul ku soo horrataana wadati war baarlamaanka hirshabeelle xuquuqdooda ay mooshin ka keeneen waxayna dhaheen cali gudlaa waana dhacay warnimada waxaa la yidhi dabka habeen kasta bakaara ka kaca sirta ka dambaysaa la helaa waxaa la yidhi si muran u yimaado ayaa boosaska laska gubtaa kadibna nin walba anaale halkaan buu leeyahay si lagu qaybiyo war dilada in looga yimaad baan moodi jiray hadduu ayaga dhexdooda ay hays gubeen aryaadaha anigu waxaan la yaaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada wuxuu yidhi dhallinyarada laga rabaa inay ammaanka degmooyinka sugaan muga waa yaabe dawladi loo doorta iyo ciidankeeri aaween horta odayaashu wasaaradda dhallinyarada maxay ka dhex qabtaan war odayaalka shabaab may dhexgeliyey war dhallinyarada soo odayaashu ma dhalin nabayadii horeetee bulshada looga wada yaabshay baadigoobka xoolihii maqnaaniman ku soo daalay dawladdii horaa qaadatay nagu yidhaahdeene ragga maanta joogana wuxuu qaba ma sheegaane maxaan gabayga uga daalayaa dhanay u wiilsheene maxaan gabayga uga daalayaa dhanayo hayanqaanqaanqaan